Hogaamiyihii Malaysia horumarka gaarsiiyay noqdayna ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia Mahathir bin Mohamad ayaynu kaga hadli doonaa barnaamijkeena maanta. Mahathir bin Mohamad waxa uu dhashay bishii July 10, 1925. Wuxuu ku dhashay gobolka Kedah ee dalka Malaysia. Wuxuu wax ku bartay kulliyadda Abdul Hamid. Sidoo kale wuxuu ku bartay dhakhtarnimada kulliyadda ku taala Malayo ee dalka Singapore. Waxa kale uu jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ka bartay cilmiga arrimaha dawladda sanadkii 1967. Mahathir markii uu soo dhameystay cilmigiisa dhakhtarnimada wuxuu furtay dhakhtar yar oo isaga u gaar ah oo ku daaweeya dadka. Wuxuuna ahaa mid ka mid ah dadka masaakiinta bilaashka ku daaweeya. Mahathir intaa kadib waxaa dibadda u soo baxday xiisaha uu u qabo siyaasadda. Sidaa awgeed wuxuu ku biiray ururka Midowga Malayo, halkaas oo ugu dambeyntii uu noqday mid ka mid ah xubnaha ugu sarreeya ururkaas. Mahathir bin Mohamad waxay si cad siyaasaddiisii dibadda ugu soo baxday sanadkii 1970 markii uu qoray kitaabkiisii la magac baxay Dhabarjabka Malayo, kaas oo wax badan kaga sheegay shacabka Malaysia kuna tilmaamay qaar caajisiin ah oo raalli ku ah in wadankoodu ahaado mid dawlaca oo aan wax damcayiba kaga jirin horumarka. Waqtigii uu kitaabka qorayo wuxuu xubin ka ahaa xisbiga waddanka xukuma Xisbul Xaakim. Xisbigii xaakimka ahaa wuxuu mamnuucay kitaabkiisii maadaama ay u arkeen fikirka ku qoran inuu yahay mid ceebeynaya dawladda iyo dadkaba. Inkasta oo taasi dhacday, haddana Mahathir Mohamad wuxuu ku guuleystay inuu xisbiga ka dhaadhiciyo kartidiisa iyo waxqabadkiisa. Taasina waxay tusaale u tahay bilowshiyihiisa siyaasadeed. Markii xisbigu ka hor yimid ma cadhoon kamana bixin xisbiga, balse wuxuu kor u fuulay salaanka xisbiga ilaa uu noqday ra'iisul wasaare, halkaasoo uu fursad buuxda u helay inuu fikirkiisa maskaxda ka guuxaya u bedelo mid waaqic ah. Mahathir kaliya kuma koobnayn dhakhtarnimada ra'iisul wasaare, balse sidoo kale wuxuu ahaa mufakkir. Wuxuuna ahaa mid leh aragti mustaqbal oo uu jeclaa inuu waddankiisa u xaqiijiyo. Waxaa sidoo kale uu Mahathir awoodda saaray 3 arrimood oo kala ah waxbarashada, warshadaha iyo arrimaha bulshada. Waxaa sidoo kale Mahathir Mohamad lagu tiriyaa mid ka mid ah siyaasiyiinta iyo dhaqaaliyahanada ugu waaweyn ee qaaradda Aasiya. Wuxuuna noqday ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia bishii July 16 sanadkii 1981. Hogaamiyahaas oo ku guuleystay inuu dalka Malaysia horumar aad u weyn gaarsiiyo oo uu ku daro dawladaha caalamka ugu waaweyn ee dhinaca dhaqaalaha. Waxaa kale oo xusid mudan in waqtigii Mahathir Mohamad uu ra'iisul wasaare ka ahaa dalka Malaysia horumar weyn ka gaadhay dhinaca isgaarsiinta iyo macluumaadka sida internetka. Arrimaha ugu yaabka badan leh ee lagu yaqaanay Mahathir waxa uu ahaa mid marka uu ka qayb galo shirarka caalamka ku faana islaamnimadiisa. Guusha Mahathir uu gaadhayna waxa uu sabab ahayd isagoo ku dhaqmay tacliinta islaamka. Waxaan arkaynaa isagoo mid ka mid ah khudbadihiisa leh Malaysia waxay ku kalsoon tahay in ummadda islaamku suurtagal tahay inay noqoto quwadda caalamka ugu weyn haddii ay midowdo oo si fiican u adeegsato kheyraadkeeda. Muuqaalkeena in Mahathir kaga hadlay maanta intaas ayuu noogu eegyahay. Fadlan dad muuqaalka heshay like, share, siina, subscribe si uu gaadho saaxiibadaada.